الله لقاء بشير لكنه مركوب البوري دوريو اسمه قرحلي محل دولة ما يكتبي محل دولة ما يكتبي محل دولة ما يكتبي الله لقاء بشير بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ومركل iyo barnaamijkii horumarka dalka oo aad kala socotaan warbaahinta qaranka qeybaheeda kala duwan waa Maxamed Cali Juxa barnaamijkaasi idin la socodsiinaya toddobaadkan ayaan waxaan diiradda ku saareynaa ama ku dul istaagi doonaa barnaamijka horumarka dalka laba qodob kuwaasi oo kala ah Acrobank ama bangiga beeraha oo laga furay dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada tan Muqdisho kaasi oo ah markii ugu horeysay oo la daafuro lana howlgeliyo bangigaasi qodobka labaad ayaan waxaan ku eegi doonaa horumar wanaagsan oo laga gaaray sharciga warbaahinta dalka uu yeelanayo isla mar ahaantaana ay ansixiyeen golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markii horena uu soo maray golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobka ugu horeeyana waxaan ku eegi doonaa muxuu yahay Acrobank ama bangiga beeraha oo markaasi loogu talagalay horumarinta arrimaha beeralayda kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga hirgeliyay bangi u adeega beeralayda kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada iyo dadka ka ganacsada xoolaha oo dhammaantoodba ah laf-dhabarta dhaqaalaha dalka Soomaaliya ahna ilaha dhaqaale uu dalka Soomaaliya ku nooloodo kagana soocan yahay ummadaha kale ganacsatada Soomaaliyeed ayaa isu tegay maskaxdoodana isu geeyay maankoodana shiilay sidii ay u dhaqangelin lahaayeen bangi markaasi u adeega beeralayda xoolo dhaqatada iyo kalluumaysatada Acrobank ayaa waxa uu ka mid yahay bangigii ugu horeeyay ee ka shaqeeya dhanka beeraha kalluumaysiga iyo xoolaha ee laga furo Soomaaliya gaar ahaan caasimadda haddaba muxuu yahay bangiga muxuu soo kordhin doonaa ujeedka loo aasaasay Acrobank waxay ahayd horumarinta dhaqaalaha waddanka si gaar ah hay'adaha wax soo saarka dalka oo ay ka mid yihiin beeraha xoolaha nool iyo kalluunka iyadoo la isticmaalayo adeeg bangi oo casri ah maalgelin waafaqsan shareecada islaamka iyo sidoo kale soo minguurin tiknoolajiyada casriga ee dunida laga isticmaalo haddii ahaan lahayd kuwa ay isticmaalaan bangiyada iyo hadday ahaan lahayd tiknoolajiyada ay isticmaalaan hay'adaha wax soo saarka bangiga waa bangi Soomaaliyeed oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed looguna talagalay inuu adeego bulshada Soomaaliyeed balad iyo baadiyada waxaan si gaar ah martida xafladan joogta iyo kuwa meediyaha ay farinteena ku gaari doonto ku wargelinaynaa inaysan isdhihin bangigan waa bangi beeraha kaliya oo khaas ah ee ay ogaadaan sida bangiyada kale ee dalka inay naga heli doonaan adeeg bangiyada oo casri ah waxaan ka codsanaynaa marka bulshada Soomaaliyeed ganacsatada goonida u shaqeysata shirkadaha ganacsiga kuwa adeegyada bixiya hay'adaha dawladda NGO-yada iyo shakhsiyaadka kale dhammaan inay akoonno naga furtaan oo halkan waxa waaye noogu yimaadaan xarunteena bangiga dadka jaaniska u saamixi waayay insha Allah anaga ugu imaan doono goobahooda ganacsi ama shaqo hadduu Ilaahay yiraahdo in bangi la furo ganacsigana uu kordho waa waxay bulshadu u baahan yihiin in waxyaabahaasi oo dhan lahaadaan albaab laga soo galo iyo mid looga baxo waana waxyaabaha ay ku hana qaadaan horumarada ganacsiga iyo bulshooyinka dawladda Soomaaliya gaar ahaan bangiga dhexe ayaa waxa il gaar ah ay ku haysaa horumarada lagu talaabsanayo gaar ahaan bangiyada soo kordhaya iyada oo sal iyo asaas looga dhigayo dastuurka dalka uu leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed cid kasta oo lacag ka qaadaysa ama ka ururinaysa waa inay bangiga dhexe sharci ka haysataa taas waxay ku qoran tahay dastuurka dalka u degsan qodobkiisa 123
ma jirto cid kale oo sharciyeyn karto annaga kaliya bangiga dhexe ayaa sharciyeyn kara waxaana sababtu ay tahay hadda ninkii hadlay wuxuu ka hadlay wuxuu yiri bangigu wuxuu yeelan doonaa swift uu kula xiriira adduunka lama xiriiri karaan swiftna ma yeelan karaan haddaan bangiga dhexe u ogolaanin bangi kasta oo ganacsi oo dalka joogana waa sidoo kale taasna waxaa loo yeelayaa in ay tahay bangiga hay-adaha maaliyadda iyo lacagta ka shaqeeya ee dalka aysan fowdo ahayn ay yihiin dad lala socdo hawshooda la kormeero laga warqabo bangi kasta oo ganacsi ee dalka ka shaqaysta 3 bilood ka bacdi meeshuu raba ha joogo garoow ha joogo meel kasta ha joogo 3 bilood ka bacdi waa bangiga dhexe inuu keeno rabood lacagtii uu bixiyay lacagtii uu qabtay waxa uu ku qabtay sida ay tahay xaaladiisu guud waxa uu soo kordhiyay iyo wuxuu soo kordhiyay barnaamijkan aadka u fiican oo daafurka bangiga beeraha agrobank aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii munaasabadan qaaliga ah ee lagu daafurayo bangigan lafdhabarta u ah runtii wax soo saarka dalka waxaana si gaar ah farxad gelinaysa in bangigan beeruhu yahay kii u horeeyay noociisa ah ee Soomaaliya laga sameeyo shicaarka bangiga waa dhiirigeliyaha wax soo saarka dalka arrin aad iyo aad u fiican weeye in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka oo wadankeena khalkhalka ganacsiga ama dhaqaalihiisa ku jira waxa weeye maalgashigii ayaa wuxuu soo gaaray dadkii u baahnaa wadanku waa u kobcaa si siman laakiin waxa weeye dadka beeraleyda ah dadka xoolo dhaqatada ah dadka kalluumaysatada ah ayaa wixii lagu horumarin lahaa ama maalgashiga ay u baahnaayeen aan helayn ilaa hadda lama hayo wadankeena markuu ugu fiicnaa wax soo saarka oo food security waxa la yiraahdaa ama isku filnaanshaha cuntada uu horumarka ugu fiican ka gaaray waa markii maalgashi ugu badan la geliyay beeraha iyo wax soo saarka xoolaha iyo kalluumaysiga beeraleyda kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada dalka ayaa waxay haraad iyo hamuun badan u qabeen cid horumarisa shaqooyinka iyo ganacsiyada ay sameynayaan iyaga oo haddana u raadinaya goor waliba waxyaabahaasi ay soo saaraan cid ka iibsata iyo meel loo iibgeeyo waxayna had iyo goor ku fikiraan qaabka ugu wanaagsan ay ku horumarin karaan howlahooda ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa muhiimadda uu bangigan agro uu ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed waxay abuuraysaa inay dadka Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan ay maalgashiga dalkooda gaar ahaan qaybaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin beeraha markaan leenahay runtii waxa weeye waa beertii kamida waxaa kamida kalluumaysiga waxaa kamida xoolihii waa sector aad u ballaaran iyo wixii soo raaca runtii dal walba haddii aan dib u milicsano wadan walba dhaqaalihiisu waxay ku xiran yihiin sector qaas ama sector gaar waxa weeye wadamo ay xagga beeraha ku xiran yihiin kuwa ay waxay ku tiirsan yihiin xagga xoolaha kuwa waxay ku tiirsan yihiin xagga shidaalka laakiin annaga nasiib wanaag dalkeenu wuxuu nasiib u yeeshay in intaasba laga helo oo hadday noqon lahayd beer kalluun iyo xoolo iyo shidaal iyo hadday noqon lahayd intaba qaybahaas oo dhan ilaahay uu ku manaystay khayraadkaas bangigan ayaa ka mid ah bangiyada mar dhow bangiga dhexe uu shartiga siiyey sanad ka hor ayay noo yimaadeen waxay yiraahdeen waxaan niman ganacsato oo la yaqaano waxay yiraahdeen bangiga beera ayaan rabnaa inaan sameeyno 20 shuruud ayaan ku xirnay shuruudahaas ka soo baxaanay bangigan sameysana horta ninka yiraahda ugu horeyn horta waa inuu bangiga dhexe u sheego lacagta uu bangiga ku furaayo inuu haysto iyo in kale lacag ayaa u go'an oo kabitaalka ama raasumaalka laga rabo bangi kasta waa inuu horta la yimaado dibadeed waa inuu keeno lacag dabaaji ah ama deposit ah uu bangiga dhexe soo dhigo oo lagu badbaadinayo lacagta ummadda uu ka qaadayo lacagta uu dadka ka ururinayo haddii berri ku lunto
bangiga dhexe ayaa ninkan siiyey ruqsad waa in lacag laga hayo ummaddii lacagtu ka luntay intay la egtaa ha ahaato in lacag loo celin karo. bangiga agro ayaa waxa uu ka mid yahay bangiyada dadaalka weyn soo geliyey inuu mar uun xaaladan uu soo gaaro isaga oo bixinaya adeegyo kala duwan oo baahi weyn loo qabay isla markaana looga fadhiyo inuu daboolo baahiyaha banki ay bulshadu qabaan gaar ahaan bulshada beeralayda kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada. adeegyada bangiga uu soo keeni doono waxaa ka mid ah retail banking oo ah adeegyo loogu talagalay ganacsatada shakhsiyaadka ah haddii aan lahayn xisaab socota xisaabkeed iyo wixii la mid ah haddii aan lahayn corporate banking oo loogu talagalay hay'adka iyo shirkadaha si gaara agro financing oo loogu talagalay hay'adaha wax soo saarka beeraha kalluunka iyo xoolaha nool si loo kabo dhaqaalahooda dhaqaalaha wadankana uu kor ugu kaco. waxaa sidoo kale ka mid ah adeegyada bangiga investment service oo waafaqsan shariicada islaamka ay ka mid tahay muraabaxa mushaaraka musaaqaad iyo waxyaabihii kale. sidoo kale bangigu wuxuu soo kordhin doonaa digital banking oo hadda diyaar ah oo ah mobile application ay dadka ka isticmaali doonaan ayagoo guryahooda jooga. sidoo kale online banking ayaa ka mid ah. waxaan ka qayb noqon doonaa hadda socda xiriiradiisa Swift oo aan yeelan doono si aan adduunyada ula xiriirno haddii ahaan lahayd LC LG iyo cash against document oo loo isticmaalo ganacsatada import iyo export ku guda jirta. waxaan insha Allah adeegyadana ka mid noqon doonaa in lacagaha sarifka qalaad si naqdi ah halkan loogu sarifo xawaaladii ganacsatada ay isticmaal lahayd. waxaan sidoo kale ka marnayn adeegyadii kaararka Visa iyo Mastercard oo xiriirkooda socdo dhawaan soo gabagabeeyo doono adeega mushaar bixinta ATM-yadii iyo BOS ay isticmaali doonaan ganacsatada insha Allah. runtii waxaa kaloo iyadana in aad loo mahadiyo mudan in ganacsatadaynu ay yihiin dad aad u firfircoon oo runtii dalka maalgelinta dalka keliya maahane ay maanta ka muuqdaan dalal badan oo ay ka mid yihiin kuwa aan dariska nahay oo ay ka muuqdaan caalamka oo ganacsatadaynu ay yihiin kuwa runtii aad loogu qadariyo aad ugu fiican xagga hal-abuurka aad ugu fiican xagga ganacsiga iyo inay qaataan runtii qataraha ganacsigu leeyahay. marka runtii xaajiga aad ayaan iyo ganacsatada kale ee ku dhiiraday bangigan inay furaan biyadu heerar kala duwan ay runtii soo mareen. maanta waxaan maraynaa markii hore xawaaladay ahaayeen ka bacdi bunuug ay isku bedeleen. maantana waxaan maraynaa inay sektaradii taqasusyadii runtii ay aad isugu qaybiyaan oo aan helayno bangiyo inkasta oo dhammaantood ay ku howlan yihiin beeraha iyo wax soo saarkooda iyo qaybaha kala duwan haddana kani inuu caddaystay inuu xagga beeraha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha inuu runtii taqasus gaara u leeyahay. taasina waxay muujinaysaa in maalin walba tallaabo hore loo qaadaayo. runtii beeraha waa shaqada koowaad uu bini aadamka uu qabto waayo waa halka laga soo saaro quudka insaanka uu ku noolaado iyo waxa uu cuno oo dhan waana asaaska dhammaan warshadaha jira ee wax soo saarka u qaabilsan. waxay daruuri u tahay nolosha qofkana ahmiyadda koowaad ee noloshiisa waa inuu helaa wax uu cuno. wax la cunana waxay ka yimaadaan waa dhulka iyo waxa laga beerto. ganacsatada Soomaaliyeed ee ku howlan arrimaha beeraha ayaa waxay kaalin weyn ay ka qaateen inuu taabagalo bangigani beeraha oo markaasi lagu horumarinayo beeralayda kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada. wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyey ganacsatada beeralayda ah gaar ahaan tallaabada ay hore u qaadeen. ganacsatada beeralayda waaweyn aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxay role model u yihiin ama ay horkacayaan in beeruhu oo waxa ugu muhiimsan saaxiibka bidhaan hadda wuxuu lahaa kalluumaysiga aan leelaawi kalluumaysigu waa qayb ka mid ah beeraha adduunkana waddan kaga baxay gaajo hilib iyo kalluun ma jiro. hilibka iyo kalluunku waa koosaar miyaan idhahnaa waa wax qof waxaa cuna moogtahay lacag fiican haysta laakiin waxa asaaska ah oo dadku gaajada kaga baxayaan waa waxa beeraha ka soo baxaa
China oo inta laga helib u heli kara iyo u heliya maaragtay kalluun marka sektarada muhiim ah way kalluumaysiga oo runtii aad iyo aad looga faa'iideysto ay tahay waa aad baan u dhiirigelinayaa bankiguna waxaan filayaa inuu sektaradaas oo dhan uu dabooli doono bangiyada beeruhuna waa runtii waxyaabaha horumarka adduunka horkaca China bankiga saddexaad ugu weyn waa China Agricultural Bank 2 billion customers buu haystaa Indiana waa saas oo kale bankiga leeyahay horumarinta beeraha India Suudaan baan aan hadda ka hortagay waxaan booqday bankiga beeraha Suudaan 150 branch buu ku leeyahay wadanka Suudaan oo beeraha lagu maalgeliyo ka wasaaradahan arinta wax soo saarku muhiimad gaar ah inoo leedahay wasaaraduhuna waxaa jira ila jooga halkan wasiiradii runtii si gaar ah ugu xil saarnaa xagga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga laakiin annaga ka wasaarad ahaan waxaan runtii ka shaqaynaynaa ka wasaarad ahaan ganacsi annagoo gudanayna waajibaadkeena iyo howlaha aan isleenahay wasaaraddan waa loo igmaday sidii shuruucdii loogu baahnaa xagga wax soo saarka beeraha runtii loo dhammaystiri lahaa waxyaabahaan isleeyahay waa muhiim oo hadda ama noogu jira waxaa ka mid ah runtii in wax soo saarka markii wax la soo saarka la dhiirigeliyo in loo helo suuq wax soo saarka Soomaaliya taasina waxay ku suurtagelaysaa runtii markii aan iska kaashano qaybaha aan isleenahay wax soo saarka ayay ku howlan yihiin iyo wasaaraddu runtii iskaashi badan ay ka yeeshaan marka shuruucda ugu muhiimsan oo hadda sida wasiir xayir uu ka dhawaajiyay waa sharciga shirkadaha waan sameynay waxaa kale oo iyadana runtii ahmiyadeeda leh in sharcigii u ogolaanayay ganacsatada shisheeyaha ama waxa loo yiraahdo muxuu ahaa MIGA oo multilateral investment guarantee agency oo ganacsatada adduunka ama in Soomaaliya ay tahay meel lagu ganacsan karo meel alxamdulillah ganacsatadu ama adduunku xoolihiisa ku aamini karo marka hawl lagu dhaqaaqayo waxa loo maraa wada raf ah oo aad u dhib badan oo markaasi ka soo dhex muuqanaysa caqabado iyo turunturooyin badan in agro la furana ma ahayn wax sahlan oo waxa shuruudo adag ku xiray bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya si markaasi looga fikiro bidqabka hantida ummadda iyo bidqabka habsami u socodka shaqada bangiga si labada dhanba loo kala badbaado nin bangi iska furan kare lacag dadka qaadan kara ma jiro ayagoo bangiga dhexe soo maray bangiga Agro Bank way soo martay imtixaankaas way keeneen wixii laga rabay full license ayaan siinay waxaa laga rabaa haday berri bangiga furaan 3 bilood ka bacdi inay raboodkii laga doonayay loo soo gudbiyaan halkaas ayaan kaga qiyaas qaadanaynaa waa run bangi 3 bilood shaqo weyn ma qaban karo waa loo fiirsanayaa waa la arkayaa bangiga Agro Bank waxaan shatiga ugu siinay in uu yahay bangi dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha dalka wax ka qaban doono inuu yahay sidii hadda uu Cabdirasaaq halkan ka sheegay 67% dhaqaalaha Soomaaliya maanta wuxuu ku tiirsan yahay agro waxa la leeyahay oo xooluhu ku jiraan oo kalluumaysigu ku jiro fartanka kale ama sodonka kale ama serviceka bulshadaha iyo waxa la yiraahdaa ha ahaadeen ganacsiga caadiga ah oo tradingka ah hadiiba ay tahay sektorka ugu weyn ee Soomaaliya dhaqaalaheedu uu ku fadhiyo ilaa ay inta wixii kale to ila kala dhaqaale laga heli doono hadayba tahay sektorka wuxuu ka faa'iido badan yahay bangiga commercialka ah waxa ka faa'iido badan bangiga beeraha Suudaan baa ka faa'iido badan wadanka waxa uu weyn oo ka socda waa beeraha weyn marka bangigan runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dawladda wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo hay'adda gargaar sida ay u dhiirigelinayaan runta ganacsiga oo runtii door aad iyo aad u weyn ku leh oo ganacsada sameysay bangigaana waa xubno muhiim oo ka mid ah runta ganacsiga dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca beeraleyda sektorka beeraha bangigana waxaan rabnaa in maalgelin fiican la siiyo in lacagtan Soomaaliya la gelinayo oo billion balaaska ah oo la leeyahay waxa la geliyay sektorka wax soo saarka
oo resiliency-ga Soomaaliya waxa wadada noo soo bandhigay 1.5 billion ee sanadkii lagu bixiyay resiliency-na ma hayno oo adkaysi abaareed laba hayo lacagtii waa ku dhamaatay abaar ka soo timaadana tii hore dadku waa ugu nugul yahay marka waxaa rabaa si resilience loo sameeyo in la maalgeliyo bunuugta noocan oo kala bangiga waliba hadda dhashay oo aqalkiisa maanta aan joogno qodobka labaad ayaan waxaan ku eegi doonaa horumarka laga gaaraya sharciga warbaahinta uu dalka yeelanayo sharcigaasi oo markaasi soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soona gudbiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga warbaahinta dalka oo soo maray marxalado kala duwan oo kala heer ahaa iyo caqabado kala duwan oo kala adkaa ugu dambeyntiina waxaa suura gashay inuu maro golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sharcigani ayaa in muddaaba waxa uu diris la ahaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ugu dambeyntii si aqlabiyada loogu codeeyay inuu meel maro muddo dheer kadib taariikhda sharcigan wuxuu soo bilowday 2007 sharcigii ugu wareega dheeraa wey ugu dooda badnaa wey haddana markii 2016 la ansixiyay haddana review ama dib u eegis uu hadda wareegii ugu dambeeyay aqalka sare marayo wey marka waa sharci si weyn looga baaraandigay lana barbar dhigay shuruuc aad u fara badan la barbar dhigay oo kuwa geeska Afrika kuwa Carabta iyo kuwa dawladaha horumaray baa la barbar dhigay sharci si weyn looga taxadiray way dooda markaan dhageystay waxaan isleeyahay meelaha qaar kood goluhu wuxuu u baahan yahay information fiican la siiyo qaabka sharcigan loo dhisi karo qaabka golaha loo dhisi karo iyo dabeecadda sharcigani uu leeyahay adduunka ku leeyahay information badan inay u baahan yihiin xildhibaanada qaarkood awoodda ugu weyn ee dhulkan waa warbaahinta waxayna awood u yeelan kartaa in qof beri ahaa dambiile laga dhigo qof dambiile ahna beri ay ka dhigto waana taa ay mid la mid ah awoodeeda sababta oo ah waxay koontarooshaa ama jihaysaa caqliyada bulshada si taa looga badbaado iyo waxyaabo kale ayaa waxaa muhiim ah in la helo sharci markaasi lagu hago aaladan ugu awoodda badan ee warbaahinta ah sidaa darteed ayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya u diyaarisay sharci markaasi lagu hago warbaahinta dabadeed ay u gudbiso golaha aqalka sare si loo meel mariyo sharcigaasi inkasta oo qaar ka mid ah senatarada u arkay sharcigani muujiyayna fikirka ay ka qabeen senator Muuse Suudi Yalaxow ayaana ka mid ahaa taladan tala xukun waay ما هنا تلا اختيار ما برلمان قد بيما وحنا أدعو تسها وحلت الماء ورقده هود ويالين تدك قرين واجوغان وقت جهري تدك القرين ولا يقان إن دبلس كوغن نقضو أقول يهان كنا واجوغان نكان كتير فديا كمذا مالين ترمي هو فدي dadka magacooda ha soo qoro qof hebel waxay sheegtay lama qaadan war waay laakiin kulligood qof wax laga qaato ma laha todobada wixii waxooda la qaato kuma jiraan waxba wax yar laga qaato waxana waxa loo dhigay si allow sahla oo qaadashay ahayn aniga u cabaadi maayo been dadku waa cabaadan miih wax alla wixii dhacaayo waxay ka dhacaan magaaladan aan xaquuqdeeda waa loo wada siman xaqada waa la wada qaataa golaha warbaahinta waa gole noocee ayaa horta u baahan ma gole executive ba mise waa gole oversee oo inuu kor ka fiiriyo in si fiican wax u socdaan miyaa keeway gole hewa sharciga uu ku dhisan yahay iyo qaab dhismeedkiisu ma gole executive ma gole hay'ad dawladeedaba ma
gole ay ku jiraan dadkii lagu xukumayay waaye kuwii lagu xukumayaa ku jira marka qaadi isuma noqon karaan haddii kale waa inaad gole kale dhistaan oo nooc kale ah oo dowladda mushaar ka qaata waa inaad dhistaan haddaa sida qaarkiid dadka u fikiraya aan la fiiriyo nature-kaan male golahan shati ma bixi karo waayo waa kii qaadanayaba waa go'aano ma gaari karo laakiin oversea buu leeyahay si fiican wax ma u socdaan balance way golaha warbaahinta ayaa waxa uu ka kooban yahay dowladda Soomaaliya warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka si markaasi ay ula socdaan waxyaabaha ka socda warbaahinada qaybahooda kala duwan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay sharciga saxaafadda ayaa waxa uu nidaamiyaa waxyaabaha la soo saarayo oo la faafinayo lana adeegsanayo sharciga warbaahinta ayaa waxa ka mid noqon kara warbaahinada kala duwan ee la adeegsado oo ay ka mid yihiin waxyaabaha la baahiyo waxyaabaha laga baahiyo telefishinada waxyaabaha ka baxa aaladaha internetka raadiyaha iyo wargeysiyada marka golahan waa gole oversea way check and balance way wax fiican ma socdaan waxa ku jira golihii warbaahintii private-ka baa ku jira shacabkii dhageystayaasha baa ku jira dawladdiina waa ku jirtaa saddexdaas isla leh waxay isla qiimeynayaan dalka warbaahintiisa iyo xorriyatul qowlku si fiican ma u socdaa marka kadib si awooday ku influence gareeyana waa leeyihiin sharciga u qoray inaku walaalayaal waxaan leenahay warbaahin aad u fara badan oo aan dhihi karo waxay haysataa xornimo aad dheeri u ah ana ogolnahay meel kasta taga Kenya tag waxa warbaahinteenu ma samayn karaan Ethiopia warkeeda iska dhaaf Djibouti warkeeda iska dhaaf Turkiga tag ma samayn karaan waxay samaynayaan haddana saasaanu xornimada u ogolna hadda waxaad moodaa golaha oo dhami hal dhinac buu tixgelinaya hal dhinac saddex dhinac inaad tixgelisaan baa la rabaa waxay tixgelinayaan warbaahinta ayaa dareenkooda oo dhan protect garaynaya protection waxa looga rabaa shacabka inaad protect garaysaan shirkadaha Soomaaliyeed haddii lagu xadgudbo inaad protect garaysaan waliba gola shacabaati dawladnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed wada leeyahay inaad protect garaysaan intaasi waxaa nooga dhan barnaamijka horumarka dalka aad kala socoteen warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan waxaana idin la socodsiinayay Maxamed Cali Juuxa tan iyo isbuuca xiga waxaan idinkaga tagayaa nabadda ha waarto noloshana ha wacnaato wassalaamu calaykum waraxmatullaah